وحويان ومريه ضد كان فعي ماشي اللي جسوا ساري ومريه واحترك هاي ماشي اللي هو كيديني وحن آدي أدوق فرحسنها ماشي أنا إنسي ذلك الله سوق علي دب لو جسوا عليه يمكن للدنيا وسيركو أما حكومة دايما كترتايني وحوين كقبته مشاريع بدن كهير جلسوا تا حكومة أيا وضع ومدحوينه كوه جابنيو والسير كانوا سويق مضي أبو رينا وحلا جربا بيرتها ما أنت الله صعده وشيء ده مشروع والله مركي هران ده أبو رين أي وهنيين إنه مثلا هر الله مريو ما أنت لو حكوا أمانية سيد قروح ضبضان قيمها بدن له وسو مريين إن مثل حتى على يمد مقصة من عيني أنا رنتي أنا قابلت مقنعي لكن تدوينه markay hor socdeen beeraha qodan mariyeen xarkaha mariyeen runtii aad baan ugu faraxday wasiirka iyo waftiguna way mahad celinayaan war fiican baa maanta leedika geenaya reeb urin hadaatiin waayo jow farxad la kala kulmay jow qiimo badan baa la kala kulmay ciidan guud haysan ba faragelisay maanta reeb urin baa ugu wanaagsan baan oran karaa waayo wasayna waxba u qarin siday diyaarka ugu yihiin ee ugu heelayihiin in maanta loo qabto ugaas kula wuxuu yiri dadka wada wax loo qabto horena madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waa u ballan qaadeen iyo xukuumadda kulmiye maantana waa wax soo saarkaaba ahmiyadda siisay xukuumaddu Axmed Muumin Seena hoodo badan buu ku yeeshay maanta ilaahay idankii waxaan ka baryaynaa in roobkuna idin helo oo waxa la yiri daruurtu eriyadaaba wad maqashay moona TV-da dalba halka ka daayso ayuu hoos carraa hoodada marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar saddexaadka waxaan ugu faraxsanahay muddadii hore aan joogay degmada waxa ka soo baxday halkan wasaarada wasiir arday waxa ka soo baxday tiim aad u qiimo badan leh oo maanta madax ka kuwii wax ku bartay ayaa maanta madax ka ah oo ka kooyeen halkan fadhiyaan Cali iyo Farxaan iyo rag kaleba iyo inta gobolka Awdal isku duwaa ka waa ardaydii aan halkan ku haynay wax ka soo bartay runtii maanta saasay noo anfacayaan maanta iyagiiba maanta ka shaqeynaya marka reeb abuurin wax leeyahay taasina maadaama ardaydii saacadna waxay dadkii tababari jireen oo u faa'iideeyeen inuu dadku qaarna ay tababarno beertaan qaarna xabxab beertaan oo hadhuun wada qodin marka taana faa'iidada ka weyn waxay ardaydii dhex joogtay wax ku baranaysay oo maanta cilmigii way haysaa dadweynuhuna marka waqtiga oo gaabanayo waxaan leeyahay reeb abuurin diyaar buu yihiin waa dadka wanaagsan arkaysaan waxay garanayaan reeb abuurin markii hore tuulooyinka kale way ka horeeyeen waa halkii tiri waxaad noo qaban lahayd noo qadiloola jirtay kolba calanadii dee xil aanan dhalan sameyn jirtay marka waxaan leeyahay aad iyo aad baa reeb abuurinta loogu amaanayaa wax qabadkana Axmed Muumin Seen iyo wasaaraddiisa maadaama aad maanta farxadaada kala kulmay warbixinta beedan dambana wuxuu u geeyay madaxweynaha aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa sida fiican ee isku afkaranay in maanta u diyaarnahay inaan wax qabsano waayo meel keen ama geed ka baxaya idin ma anfacaye meel cagaf ku sito biyo la joojiyo oo qudrada oo nooc walba oo mishiin ku cisle ayaa la ta kale ku dareen ka codsanaya waxa weeyaan wasiirka oo leeyahay mashaariicda soo socota inaad ku darto ilaa risaaska iyo laamayda wadada in loo hagaajiyo abuurin oo caanaha geel aroortii laga soo cabo wadada aad ugu darto saacad wasiir mashaariicda horena way ugu jirtay waa in uu qorshaysnayd marka wadadana loo hagaajiyaan leenahay sida kalena oo diyaar aad iyo aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh